بسم الله الرحمن الرحيم adduunyada nin noolow maxaa aragti ku laaban ifku waa guri la yaab iyo cajaa'ib badan waxaa soo maray quruumo kala duwan iyo ummado kala jaad ah oo mid kastaba ay leedahay dhaqamo iyo caadooyin gaar u ah oo aan la mid ahayn kuwa dadyago kale waa duni qaangaadh ah oo shar iyo khayr mid kastaba ka jibbo keentay kolka aad dib u raacday sooyaalka dunidan u qaadan waaga badan lehna waxa aad ka helaysaa dhacdooyin ama kaag leh iyo taariikho ashqaraar badan haddaba daawadayaal waxaynu isku dayi doonaa in taariikhda cajaa'ibta leh ee kowkan bal aynu wejiyadeeda faraha badan leh mid ka mid ah eegno kaas oo ah mahadhada ay dhigeen dumar ka mid ah kuwii noolaa quruumihii hore quruumihii dhexe iyo weliba qarniyadii dambe kuwaas oo sameeyey ficilo iyo falal ugub ku ah aadmiga ayna ku noqdeen kuwa ay dadyawga dhacdooyinka qiimeeya ay ku tilmaameen in ay yihiin dumarkii ugu xumaa ee soo maray taariikhda aadamaha dumarkani waxa ay ka kooban yihiin dabaqadaha kala duwan ee bulshada sida boqorada madaxda iyo weliba dabaqada rayidka waxaana aad taxanayaasheena dambe aad ku arki doontaan taariikho xaqiiqo ah oo daalin doona maskaxdiina haddaba si aad marag ugu noqotaan dhacdooyinkaas ka mid noqdo saaxiibada ku xidhan janaalkan taxanayaasheena waxaa buddig u ah buug ku qoran af carabi oo marka magaciisa la turjumo uu noqonayo dumarkii ugu xumaa ee soo maray taariikhda waxaana aynu soo qaadan doonaa qisaska ku duugan buuggaas innaga oo isku dayayna in aynu raadino xogo fara badan oo ka baxsan buugga si aynu dhacdooyinka wejiyo kala duwan uga eegno taxanaheennan cusub qaybtiisa koowaad waxaynu kusoo qaadan doonaa mid ka mid ah labada dumar ah ee uu ilaahay dumarka xun oo dhan uga dhigay tusaalaha ee bal aynu ku horreyno gabadha koowaad waaqica bin laamik bin mutawshaa'iil bin mahwiyaaiil bin ciiraad bin khunuuq bin qaabiil bin aadam calayhi salaam waxa ay ahayd xaaskii nebiyullaahi nuux calayhi salaam waaqila oo culimmada taariikhdu ku sheegaan magacyo kala duwan oo ay ka mid yihiin nimca iyo waaliha waxa ay ka dhalatay qoys maalqabeen ah waxaana ahayd mid ka mid ah tujaarka qownkeeda sida oo kalena waxa ay nebi nuux isguursadeen intii aanu rasuulka noqon ka hor waaqila hooyadeed waxaa la odhan jiray saylah waxaana ay nuux u dhashay 4 wiil oo la kala odhan jiray yaafis saam xaam iyo yaam oo ay ahlu kitaabka u yaqaanaan kancaan eebbaweyne markii uu rasuulka u doortay nebiyullaahi nuux isaguna uu bilaabay inuu dacwadda gaadhsiiyo qoomkiisa durtaba waxa ku gacan seedhay oo ku diiday dacwaddii xaaskiisii uu qabay taas oo ahayd cidba qofka ay isugu dhowaayeen ee ay nolosha wada qaybsanayeen caqabadii koowaad waxa ay nuux ka qabsatay gurigiisa gaar ahaana ooridiisii taas oo ku dheeldheeri jirtay kolkastana la murmi jirtay oo asaraari jirtay nuux waxa uu waajahay halgan weyn oo uu u guntaday sidii uu ummadiisa uga badbaadin lahaa naarta waxaana uu isku dayay inuu goob kasta uga sheego xilli kastana ugu baaqo dacwadda ilaahay nasiib darrose waxa uu kala kulmay wejikabax habeen iyo maalin kol ay tahayba waxa uu nuux u taagnaa yeedhmada ilaahay waxaana uu qownkiisa u yeedhayay muddo dhan 950 sano intaasba waa ay dhibi jireen waxaana ay gaadhay heer marka uu la hadlaba ay dhegaha ka dabooshaan arrinta cajaa'ibka badan leh waxa ay tahay muddadii dheereed ee uu nuux qoomkiisa u yeedhayay in ay rumeeyeen dad aad iyo aad u tiro yar oo gebigooduba lagu sheegay in ay ahaayeen 270 qof oo keliya kuwaas oo weliba ahaa dabaqada hooseysa amaba dadkii ahaa saboolka danyarta addoommada iyo masaakiinta waxaa intaa usii dheerayd in muddadii uu nuux dacwadda ugu yeedhayay qoomkiisa uu jiilba jiil bedelayay oday kastaana marka uu dhimanayo uu ubadkiisa kula dardaarmi jiray in aanay rumayn nebi nuux dhibka uu nuux kala kulmay qoomkiisa muddadii 950 sano ahayd waxa u dheereed jeejeeska iyo hawsha ay ku haysay xaaskiisa uu guriga kula noolaa waaqila kadeedka ay nuux ku haysay intaas ma ahayne waxa uu geeleelkeedii gaadhay heer ay fadaxdayso waxaa la sheegaa in ay maalin ku tidhi goorma ayaa uu ilaahaagu nuuxa kuu helinayaa isna waxa uu ku yidhi waxa uu ilaahaygu ii helinayaa marka halka aad dabka ku shidatid ay biyuhu ka soo burqadaan waaqila intaay carartay oo ay dhex tagtay qoomkeedii ayaa ay ku tidhi wallaahi qoomkaygiyow nuux waa uu waalan yahay oo waxa uu leeyahay ilaahaygu waxa uu ii helinayaa marka uu dabku biyaha dhalo sida aynu soo sheegnayba dadka ugu badan ee nuux rumeeyey waxa ay ahaayeen danyarta iyo addoommada weliba intooda badan islaamnimadoodu waxa uu ahaa sir maxaa yeelay haddii la ogaado waxaa dili jiray oo ciqaabi jiray madaxyaweenka qoomkooda kolka ay dadkaas ducafada ahi iyagoo isqarinaya yimaadaan guriga nuux si ay u islaamaan waxa fashilin jirtay waaqila oo u sheegi jirtay in ay soo islaameen qoomkeeda markaas ayay qoomkuna ciqaabi jireen oo ay dili jireen waaqili keliya ma aysan ahayn xaas xun oo adeegeeda dhibta waxa kale oo ay ahayd hooyo xun
taasoo galaafatay mid ka mid ah wiilasheedii oo la odhan jiray Yaam ama Kancaan, waxaana ay ku boorisay inuu dacwadda aabihii dhegaha ka furaysto. isagiina waa uu ka yeelay, waana uu ka gaaloobay aabihii, waxaana ay labadooduba ku dhinteen ciqaabkii iyo cadaabkii uu Ilaahay kusoo rogay. Waaqila xumaanteeda ayaa ay ku gashay taariikhda, waxaana uu Eebba inoogu sheegay kitaabkiisa in ay dumarka xun u tahay tusaale, sida oo kalena waxa uu u ballan qaaday cadaab iyo ciqaab aad iyo aad u daran.